ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay soo afjaridda in ka badan 20 isbaaro oo inta u dhaxaysa deegaanada lambar 50 iyo Shalambood ay soo dhigteen kooxo burcad ah kuwaas oo lacag baad ah ka qaadanayay gaadiidleyda sidoo kalena dhac u geysanayay dadka shacabka ah. Maxamed Maxamuud oo kamid ah saraakiisha qaybta ka ahayd howlgalka lagu qaadayay isbaarooyinka ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah kooxihii burcadda ahaa ee dhiganayay isbaarooyinka ayna ku raad joogaan kuwa kale oo baxsaday. ugu yaraan howlgalka waxaa lagu qabtay 296 qof waxaa duurka ku maqan ciidan gaaraya ilaa 20 rag ilaa 18 rag kuwaas ayaa baadi goobkooda ku jirnaa weli waxaan jecelnahay inay is soo dhiibaan qoryaha ay dhigaan shacabkooda ay ka bad noqdaan. gaadiidleyda dhibka ku qabay isticmaalka inta u dhaxaysa lambar 50 iyo Shalambood ayaa dhankooda soo dhabeeyay sida ciidanka xoogga ugu jawaabeen dhibaatada ay kala kulmi jireen kooxihii burcadda ahaa. hadda u jeedna maalmahan wadadan oo keen oo tahay maalmihii hore dhibaato dhac rafaad loo qarxis intaas noo dheeraad doo okay waa wadada amniga ku marayna mobilada laga baarina shacabku wala baarina dharkii camaamada baasjiriga wala qaadinay hadda intii mugaada wax dhib aan sheegay nadiif oo qabnaa. ganacsatada deegaanka lambar 50 oo lacagaha ugu badan isbaarooyinka looga qaadi jiray gaadiidka u soo qaada badeecadooda ayaa dhankooda soo dhabeeyay howlgallada ay ciidanka xoogga kula dagaalamayaan isbaarooyinka sharci darrada ah. isbaarooyinka degmada lambar 50 laga qaaday waa mid aad iyo aad u faraxsanahay hadda aan nahay dadka ganacsatada lambar 50 ku nool. oo faraxsanahay awal hore laakiin waxyaal dhibaas ka jir meesha mar walba macnaha suuqa laga soo kala urdaa lama qof isku dhaw suuqa laga soo kala urdaa mar walba ganacsiga xirnaa kiis mar hada laakiin joog degan wax dhibaato ma qabnaa.